السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء JTN كني باوريس جارة وحمرتين نوعه منى عبد عبيد وكم ذا قبلها لأن يرضى يكون مجال البنباط حرونت المدى كرسون منى ما أنت ومال انتدي مركز الإيجو تاريخ يجودها ديجان كسومالي ده نسكي دحية ما أنت وحصوب حي war ilaa iyo iminka aad loo hadlayo oo dhaliyay hadalhayn badan oo dad fara badan oo shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda ay ku farxeen muna waxay qaadatay qaraar ah in ay doorato ay nafteeda u hibayso mid ka mid ah haliyada daadiyada ee ka halgamaya furimaha lagu cirbinayo hadaawaha shabaab waxaan joognaa magaalada Bombas waxay garab dhida min Abdi Abib muna ayaa ku bilaabay su'aasha koobaad inta aynaan meel kala gelin muna waxay qaadatay qaraar xooggan oo quseeya lafaaga quseeya ama naftaada mustaqbalkaaga quseeya askarigaas kamid ah halgamayaasha furinta ku jiray maxaa kugu dhiirigeliyay inaad dooratay horta isaga marka hore السلام عليكم ورحمة مركورون السلامية أدبن يسوع دوينيا تيفيجا والله ويلك جسمي مدي سو من كهله waayo hadiya habeen bay inoogu jiraan wadad ka mar walba nabadda nada yasuga marka geesinimadiisa kaliya ka helay waxa qoonaan u mari wiilka hadda ka hor miya istaqaaneen oo ma xidhiidhiseen oo dad is arkiyo is yaqaanimo may waliga ma arag baraha bulshada ma ku bartay baraha bulshada marka maadaama uu furinta joogay oo imika aad u fog yahay khadkan aad ku aragtay maxaa kalifay danta ama kugu dhiirigeliyay inaad baraha bulshada iyo warbaahinta u sheegto inaad wiilka almato qaab kale oo aad u xiriiri kartay military may kulli horta ismilihi qaab kale oo la xiriirisa jirtay teeda labaadna inaan wax qarqarsadaba ma aanan rabin wax walba waxay warkayga dhan nooc cadaad rabay anaa wiilka aad jeclaaday oo dalbaday maanta markii aad go'aan ka qaadatay wiilkii aad almatay ee geesiyaasha kamid ahaa warkii iyo dambaalkii ma gaaray oo wax jawaab aad u meeshay ها ويل waxay la soo hadlay ugu dhahay wiilka walaaladii baan nahay haddana igu fogiyay xataa mar waxay la soo hadlay wiil ciidan ay ugu dhahay isla joognaa laakiin hadda goobta wada joognaa laakiin isku ma dhawin aad buu u faraxsan yahay aad baan anaguna ugu hambalyeena adigana sidoo kale ugu hambalyeena wali wiilka ma isma qashin say ma wada hadashay wali ma wiilka codkiisa ma waqa telefonkiisa iyo waxa ma heli ha laakiin madaxda ay la soo wada hadashay okay madaxda deegaanka oo dhan bay la soo wada hadashay soo dambaleysa fariintaadii iyo dambaalkaagii iyo go'aankaagii markuu gudbay ee jawigan aragtay maanta aad lagu wada hadlayo waliba warar farxad leh oo mustaqbalkaaga khuseeyo la sheegayo hadi shucuurtaadii dareenkaaga waa noocma wallaahi aad baan ugu faraxsanaa oo ugu farxatahay waxaan jecelahay gabdho badan oo sideeda inay ugu dabadayda ma raba hadii la helo insha Allah qaraarkaas marka waa mid adigu ku yaalo noloshaada aad ka go'aan ha naam hadiya maxaad filaysaa imika markaad aragtay jawigu nooc uu yahay adigu niyadaada iyo qorshayaashaadu kulay saan islaahay wayde isla isku dibadhaay hirgeli ha insha Allah ma santahay anaguna waxaan ka midnahay mujtamaca malaayiinta deegaanka Soomaalida ee ku hambalyeynaya JTN ahaan iyo dhalinyarada idin garab taagan ma aragtay idin la dhalatayba wiilal badan oo halgamayaal ah ayaa khadka haystay oo la soo dhigayay ahadkaas si gaar ah ها كل يعني سجون بايقني. سما. أوكي. مركا هالجنك إيه نظامك لقي مادو يعني أنت وقنعية سووا هالجنك وقنعية وحكلا أو سجارة وقحلت. ها ويشرت أرنو حدا على الشيء جيبي إن يمينو مالكو عسين على شبابته. أيه. أو يعني وعيدا كورن سوق وداف. أوكي. مركا جيسيني ماذا؟ جيسيني ماذا سيجوسو تشيتي. أوكي. marka kaawanin dalkiisii dadkiisii anaga dabanin kana ma qanay dalina daafacaya shacabkii joogay intuu dhahay ayahayd waxa kamid ahaa eriyada warbaahinta u sheegtay hatta hadduu xaas kale leeyahay waan ku gelayaa marka xogti marka shay xaas muu leeyahay may wiilka xaas male wiil kaliya ina nin keligii aad ku aragto okay marka familkii iyo qoyskii iyo waas wada barateen wiilkii waad aragtay telefonkiisi dadka soo xiriirsan telefonkiisi inaad hesho ama kaaga u helo maxaad suurtagal leedahay
ma insha Allah waxay la soo hadlay korneelo badan iyo hogaamiyooyin badan waxay ugu dhaheen adoo wax yar ka bacdi adoo dhowr laba cisho la saddex cisho ka bacdi waan imananaa ugu dhaheen hada howlgal baan ku jirnaa hada wiilkii inuu nala joogaa bay ugu dhaheen marka ma kugu dhibnaa maana ku dhaay ugu dhibnaa sarkeena wiilku adu Bambaas ba joogtaa wiilkuna wuxuu joogaa furinta oo halkan buu ku jiraa jigjigana waa caasimadeennii deegaanka waxa laga hadlayaa xafladaada iyo arooskaaga iyo qabanqaabada hawshaas oo deegaanku uu kala harinin halkeed jeceshahay inuu lagugu arooso hadii la yiraahdo saddexda goobood ee tan aad ku dhalatay ee joogto furintiina isagu joogay meesha aad ku qalmatay oo tahay hawlgalkiga jiray jigjigana caasimadeeda kale caasimadeena waa jijiga insha Allah hadiya shuuinta Soomaaliyeed farinta ugu dambaysa iyo gabdhaha facaaga ah ee walaalaha ee Soomaaliyeed farinta ugu dambaysa oo diraysan walaahi waxaan leeyahay ha sameeyaan arrintan sameeyo kale gabdhaha dhan si fiican dalkan iyo ciidankeena gaarka xoogan iyo booliska aad baan u jeclay nolosheedina waan jeclaa ciidankaanu hadaba ma aha laakiin wiligeeba ciidanka waan jeclaa waxa la eeday gabdho badan sayda wiilasha saasoo kale ha u sameeyaan ani hadda wax cilad ay haysata ma jirto oo wiilka ku gal isle gabadh yar baan nahay caafimaad qabta ilaa 6 xad dhameystiray calaflaanimo ay soo toon wiil baan la sheekaystaa laakiin anaga geesinimadiisa wiilka ka hela gabdho badan waxaan jecelahay saasoo kale uga helaan wiilal badan wiilasha aad la sheekaysanaysa maxaa arno taas wala hadda kama sheekayn karay nagara la ahada ya nagara la ahada kulli daha waxaan u maleynayaa dad kale inay gaar la ahadaan marjiini ay wili midna kula soo hadlo ma ku yiri manay waxa talabada qaadis weeyaan mii waxaan malaha waa indhahayga wiil igu dhaway jirtaa laakiin de ma bixin aad ma san tahay taasi waa muna oo maanta ay maalinkeeda tahay mar kale iyaduna halgamaaga ay dooratay iyaduna waa halgamaa kale oo go'aan adag qaadatay aad ma san tahay idinkuna aad ma santiin annagana waxaan farxad noo ah gaar ahaan anigu Axmed Awga inaan guriga muna ku sugannahay magaalada Bambaas aad dad muna ma san tahay wareysiga noo golatay sidoo kale walaalihiin kala duwan waa guulaysan inta ay ka badan insha Allah